lagaga eerto horta ilaahay uun baa cabsidiisun baa lagaga eertaa cid wax iska difaaci kartaa cid wax iska joojin kartaa toona ma jirto marka sidaa la yeelo dunidu maanta waxay u qaybsan tahay waa gaalo iyo islaam gaalo waxay ka gaalowday ilaahay abuurtay bay ka gaalowday iyadu markaa waxbay dhaqan gaar ah bay isticmaalaysaa waana waxyaabaha keenayba cadhada ilaahay inay soo degto maxaa haddaba kala gudboon iyagu waa kuwa geeri ma ogola iyagu dhimasho ma ogola innaguse dad islaama baynu nahay dalalka islaamka ahi in dhimasho jirto waayo magaaladooyinkeenna maalin walba waxa laga qaadaa magaalo walba intaasoo meyd baa laga qaaday marka loo rafay baa lahayd maxaynu wax uga difaaci weyn waxa weeye hadday maanta iyaga geeridu kaga cabaadisay iyo waxa ilaahay u soo diray dee innaga dadkuba waa dhiman inagu saasaynu u dhimanayna waana ogolayn laakiin amaraan maqlayay ka soo baxay guddigii hawshan loo xilsaaro la leeyahay masaajidada ha la xidho diiniyan anigu diintu waxay ka qabto dee anigu garan maayo laakiin war haddaanay xidhnayn kuwii fusuqa lagu samaynayo guryihii lagu samaynayo ood awood u lahayn inaad xidho oo kuwii qaadka iyo xanta iyo beenta iyo balaayada lala gelayay furan yihiin intii masaajidka ku jirtayna aad tidhi ka soo yaacay kuwanna aanad xidhi karin markaa ma dadki intii ilaahayba inoogu dembi naxariisanayeen aad ka tidhi soo xidha masaajidka soo kuwan furan maaha markaa kaniisada isugu kaalaya dadku waxa weeye anigu waxaan odhan lahaa haddaanay sidatan qabin haddaanay dawladdu awood u lahayn inay xidho dhulka fusuqa iyo guryaha lagu samaynayo waxaan haddaanay iyadu xakamayn karin dee masaajidka quraya xakamaynin baan anigu odhan lahaa kuwaasuna ha furnaadeen kaana ha la soo xidho kaas waa kii lagaga eeran lahaa waxa xun midda labaad dadka maanta waddanka jooga xitaa bandow maalin uma taaghayo sida kale haysu ilaaliyo dadku sida shimbiraha subaxii soo dareeran 3 meelood oo boqolkiiba 3 meelood sida shimbiraha waxaan leeyahay war dawladda haddaanay awood u lahayn meelihii marfashiyadii meelihii albaabadii kale haddaanay xidhiba karaynin masaajidkii ha la xidho anigu ma qabo inay dee waa meeshii lagaga eeran lahaa intaa yar baaba ilaahay inoogu dambi dhaafiya masaajidka ku jirta magaalada Burco waxa ka dhacday baa laygu yidhi nin baa laga helay reer Burco waa soo yaaceen waxay yiraahdeen ninka laga helay baan soo eegayna hadda waa kii laga carari lahaa dawladda oran kari weedo war ka noqda markaas la yidhi ninkii waa laga waayay markaas waxaan isla soo sawiraynaa ninka laga waayay war bal dadkeena waa yahay hadaanad wax xakamayn karayso dawladuna dee wixii nidaamkii wixii ay wax ka qaban karayso talaabadeeda ha qaado wixii nadaafad lagaga hortegayo wixii kale ay qaban karayso dad baan maqlayay miyiga ha loo baxo oo miyiga ma gurigaaga aad ka aragtay dadka boqolkii 3 meelood oo 2 meelood waqti bay ku sugan yihiin hadda adigu lacagaad miyi ugu rarto hayso horta ma eegtay kuwa kan markaad leedahay miyi loo war sida kale dadka nidaamkiisa ha la qabto dawladdu wixii ay qaban karayso ha qabato dadku hays ilaaliyo nadaafadiisa ha ilaashado in haddaba la dadaalo oo nadaafada lagu dadaalo oo dadku kala fogfogaado oo sida loo hogaansamo wacyigelinta dee wasaaradaha ay caafimaadku bixinayo culimadu sida ay qabto in loo hogaansamo waa fiican tahay laakiin meelaha wanaagsan ee ay ilaahay ugu dhawaanayno ee xuskiisa ugu dhawaanayno haddaan la wada xakamayn karin meelaha kale iska furan yihiin ma wanaagsaneen meelahaas furan ilaahayna waa inoogu cadhoonaya midda labaad ma xanuun baynu ka baqnaayo ilaahay baynu ka biqi weynaa iyo inagu faral yeelay in masaajidada lagu tukado diinta marka ma xanuun baynu ka baqnaa maya waxa weeye ka biqi maynee waxaynu inagu ilaahay baynu ka hoos gelaynaa dadka islaamkoona meel kasta aad joogtaan mucjiso ilaahay iyo hadday soo degaan ka hoos gala ilaahay isu dhiiba cibaadadiinu hadday idinka xun tahay sugta hagaajista dunidii waxa soo degay cadha Allah soo degtay dunyadii maraysa islaamka waxa looga baahan yahay xagga ilaahay u cararaan gaalo iyadu ma oga awalba ma ogeen ilaahay iyo arrimihiisa toona waa taa qaylinaysa inagu aanu cararo xagga ilaahay sidaas aan lagu oran lahaa. Wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.